السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانيقو عبد الولي محمد أبوكر ومشهد كبرتان برشاد كمبيوتركا سيدو كلام ملتميديا وعشر يار oo aan ku baran doono sidee flash aad ugu shubi kartaa 7 GB ilaa iyo 8 GB data ah laga soo bilaabo 3 wixii ka sareeya waxaad arkaysaa inuusan flashka ku shubmeenin balse maanta waxaan rabnaa casharkeena inaan ku qaadano qaabka ugu fudud ee aad ugu shubi lahayd data haddii aad tahay qof inagu cusub waxaan ka codsanaynaa inaad inoo subscribe gareyso channelka sidoo kale aad inoo like gareyso muuqaalka iyo muuqaalada kaleba sababtoo ah waanu kaaga mahadcelinaynaa hana ka iloobin inaad doorato gambaleelka si aad u hesho cashir walba oo aan markaas soo dhigno ugu horreyn waxaan haysanaa flashkan datadiisu ama GB-giisu waa 32 GB waxaan sameynaynaa marka computerka ayaan gashanaynaa okay markaan computerka gashano waxaan furaynaa my computer ama file explorer qofba sidoo u yaqaano my computer marka aad furto waxa halkan ku arkaysaa flashkii aad gelisay computerkaaga GB-giisana uu yahay 32 GB balse computer ahaan uu soo saarayo 28 GB daatada aan rabnay inaan ku shubno wuxuu inoo saaran yahay desktopka balse waxa dhici karta adiga inuu meel kale kuugu jiro so waxa sameynaynaa marka my computer marka aad joogtid filekii right click ayaad leedahay properties ayaad leedahay waxa arkaysaa GB-giisa inuu la eg yahay 5.72 GB haddii aan dhahno waan qaadaynaa waxaan ku shubaynaa flashka si fiican ila fiiri flashka ayaan furay waxaan sameeyay daatadii ayaan drag and drop soo qaaday waxaan ku duldaayay flashki waxa arkaysaa isla markii inuu leeyahay flashkan datadan kuma shubmaayo flashkan sababtoo ah wuu ka weyn yahay okay drag and drop way naga diiday okay maxaan sameynaa marka copy and paste aan probeynayna right click ayaad failka leedahay kadibna waxaad leedahay copy markaad tiraadid waxaad imaanaysaa flashki right click ayaad leedahay paste ayaad leedahay isla markii waxaa arkaysaa inuu sidoo kale soo diiday haddana waxaan dul tegaynaa isla filekii right click ayaan leenahay send ayaan waxaan leenahay right click ayaan leenahay kadibna waxaan leedahay send to kadib waxaa aadinaysaa flashka sidoo kale waxaad arkaysaa inuu ka diiday maxaa keena marka inuu diido flashka waxa keena waxay tahay flashyada wuxuu u shaqeeyaa ama hard drive-yada ama anything oo USB wuxuu u shaqeeyaa 3 qaabka koowaad inta mostly waxa la isticmaalaa qaabka koowaad waa FAT32 qaabka labaad waa NTFS qaabka saddexaadna waa exFAT marka flashkan ugu horeyn fiiri flashka aad rabtid inaad datada ku shubto ma exFAT ma FAT32 ma NTFS sidee ku ogaan kartaa flashkaaga formatka uu format gareysan yahay right click ayaad flashka leedahay kadibna waxaad leedahay properties markaad dhaadid isla markii waxaa arkaysaa qaybtan ay ku qoran tahay file systemka inuu yahay FAT32 haddii ay dhacdo FAT32 waxaa muhiim ah marka inaad FAT32ga aad ka bedesho aad u bedesho NTFS ama exFAT haddii aad tahay qof isticmaalayo Mac ama isticmaalayo Ubuntu ama wax noocaas isticmaalayo waxaa muhiim ah inaad flashkaaga u format gareysato exFAT haddii aad tahay qof kaliya isticmaalayo Windows-ka sida anaga aan isticmaalayno oo kale waxaa muhiim ah inaad ka dhigan karto adigoo kala choice gareysanayo NTFS ama exFAT anaga hadda waxaan rabnaa inaan u bedelno flashkan exFAT sideen ugu bedeli karnaa flashka ayaa dul tagaysaa flashka wixii kugu jira waa uu ka baxayaa ugu horreyn waxaa muhiim ah daatada kugu jirta inaad qaadato aad dhigto computerkaaga meel ka mid ah waxaan dul tagaynaa flashki right click ayaan leenahay right click markaan aan dhahno kadibna waxaan dooranaynaa formatka markii aan doorano waxaa ku soo baxaya dialog box kaasoo laga raba inaan ka doorano marka file ama file formatka aan rabno inaan ka doorano ugu horreyn waxaad arkaysaa inuu capacity-ga inuu yahay 28 GB halkan waxaad ku arkaysaa file systemka inuu yahay FAT32 default ah so marka halkan FAT32ga ayaan furaynaa kadibna waxaan ka dooranaynaa exFAT ani hadda waxaan badanaa isticmaalaa Mac iyo Windows inkastoo ani aad aan u jeclahay dhinaca Windows-ka waxaan aad u isticmaalaa exFAT waayo NTFS-ka markaad gelinaysid computerka waxaad arkaysaa flashka inaad wax ka qaadi kartid balse aadan wax ku soo koobiyin wax ku koobi gareyn karin marka aad ay u dhib badan tahay marka isku day inaad isticmaasho exFAT mostly sida ugu fiican exFAT markii aad doorato file systemka waxaad furaysaa allow locationka ama allocationka markii aad furto kadib waxaa arkaysaa bunch staffyo badan okay anaga waxaan ka dooranaynaa meeshan ay ku qoran tahay default location size
okay default allocation size ka markii aan doorano intaan kale waxba kama taabanayno sida uu yahay ayaa waxaan ku leenahay start xasuusnaaw flashkan wixii kugu jiray waa uu ka baxaya fadlan isku day daatada kugu jirtay inaad copy gareysato aad ku shubato computerkaaga dib aad ugu soo ceshato okay kadib waxaad leedahay okay markaad dhahdo isla markiiba waxaad arkaysaa si degdeg ah inuu ku dhameeyay flashka formatka kadib okay ayaa leedahay kadibna close ayaad leedahay waxaan rabnaa markaad inaan furno flashka kadibna aan filekii soo copy gareyno kadibna aan dul tagno flashkii aan rabnay inaan ku shubno right click ayaan leenahay kadibna waxaan leenahay paste waxaa arkaysaa isla markiiba daatadii inoo bilaabay copygii kaas uu ku shubayo flashka sidaan filayo wixii aad raadinayso waa aad heshay fadlan waxaan kaa codsanaynaa inaad inoo subscribe gareyso channelka sidoo kale aad inoo like gareyso muuqaalka hana ka iloobin inaad doorato gambaleelka si aad u hesho cashir walba oo aan markaas soo dhigno aniguna waxaan nahay qofkii ku bari lahaa adiguna waxaa tahay qofkii baran lahaa waxaan idinkaga tagayaa sidaan iyo cashirka xiga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu